السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصة إبراهيم ابن أدهم مع الخباز. تاني وحوي إبراهيم ابن أدهم قصة عجب بدن ونحمرت إساقي إيا نين فورنا كشقية أما الروتي الدبه. بالقصة دان أفرسو إبراهيم ابن أدهم سند بو سو حجيي جماعة سيبو صور راعي حجك كدبنا وحو صوب وقضي مساجد كنبوة مدينة كيالة الرسول صلى الله عليه وسلم كدبنا صلاة عشاية أيو هالكايمد صلاة مركلة كدي أيو مساجد كسكرح فريستي isagoo tasbiixdiisa iyo dikrigiisa ku jira isagoo sidaa u fadhiya baa dadkii mushrifiinta ahaa oo masaajidka nadaafadiisa iyo tartiibkiisa ka shaqeeya baa yidhi soo bax ilaan habeenkii dadka waa laga soo saaray oo hal mar baa masaajidka la nadiifiya habeenkii ugu horreysay oo masaajidka madiina aan dhex joogay yacni ma u malaynaynin in dadka laga saaro oo waxaan moodayaa habeen iyo maalin in la iskaga dhex jiro laakiin waxaan xusuustaa in layga soo bixiyay aniga naftayda in layga soo saaray ayaan xusuustaa anoo ku dhex jiro waqti dambe ay tahay baa la yidhi waa la nadiifinayaa ee ka soo baxa ayib almuhim ibraahim waa laga soo saaray markuu waxoogaa isku adkeeyey wuxuu yidhi maad idaysa hal laa taraktanii abiitu huna maad idaysaan halkanaan caawa iska seexdo weli guri maan diyaarsanin albaabka korka iga xidha salaada subax markaad soo noqotaanna halkaanaad iga heli doontaan insha allahu tacaala anoo jooga waad diideen iyaguna waxay ka baqayaan masaajidka inuu dhib u keeno ayay ka baqayaan kadib ninkii markuu waxoogaa ku dhaga adkaaday niman kaloo u yeedhay wayna qabteen marada intay qabteen bay xoog ku jiideen oy ka soo saareen bannaanka ayay fadhiisiiyeen masaajidkiina way xidheen meeshii isagoo iska fadhiya meeluu dhaqaaqa ma yaqaano magaalada caawa uga horreysa waa nin sheekha laakiin dadku garan mahayaan nin baa meesha soo maray ninkiibaa arkay ninkaan meesha fadhiya wuxuu yidhi niyahow may raacaysa aniga caawa ila soo seexo haya bina waa ina keen aniguna dee ninkana wuuba rabaaba wuu iska raacay dayib wuu raacay dhexda marka la sii marayo ayaa wuxuu yidhi niyahow waxaan ka shaqeeyaa khubsiga iyo kibista iyo waxaan la yidhaahdo muufada ama dhe kibista dhe rooti dhe canjeero dhe waxaan ummadda loo karayo laxoox dhe sabaayad dhe almuhim waxaasaa maaragtay ayuu ka shaqeeyaa oo heshiisu tahay habeenka oo dhan wuu shaqeeyaa wuxuu yidhi habeenkii oo dhan waan shaqeeyaa subaxiina waxaa qaada carruurtayda ayaa soo iibisa marka sariir baa ii taalla iska seexo waagu markuu baryana dee guri karayso orod magaalada gal waayahay buuhi wuu soo raacay markuu soo raacay habeenkii oo dhan wuxuu yidhi ninka unbaan fiiriyaa mar alla markuu hal rooti a dabka ku ridayaba bismillaahi buu leeyahay mar alla markuu ka soo bixinayana alxamdu lilah buu yidhahdaa sidaasuu ku waday riwaayaadka qaar waxay leeyihiin wuxuu lahaa astakfirullah markuu gelinayay iyo markuusu astakfirullah say doontaba ha noqote ninkan ibraahim ibn aadam wuu la yaabay wuxuu uhi niyahow dikri kale iyo wax kaloo lagu ducaystay iyo wax kaloo la akhriya soo ma taqaanid wuxuu yidhi niyahow mundu 20 caama 20 sano anigu intaa un baan aqriyaa markaan gelinna bismillaahi baan dhahaa markaan ka soo bixinna alxamdu lilaahi baan dhahaa wuxuu yidhi haddaba wax raad ah oo noloshaada ay ku samaysood aragtay ma jiraa wuxuu yidhi haa wax kasta oon ilaahay weydiisto wuu isiiyaa buuhi allah subxaana wa tacaala ilaa hal arrin ma ogi waxaa jirta buuhi marka hal arrin oo 5 sane hadda u dambaysay aan ilaahay weydiisanayay oo weli aan la isaynin maxay tahay buuhi wuxuu yidhi sa'altu allaha an yajmacanii biibraahim ibnu adham ajlisu macahu wa astafiidu min cilmihi waxaan 5 sane u dambaysay ilaahay weydiisanayay ilaahay inuu ila kulmiyo sheekha la yidhahdo ibraahim ibnu adham si aan cilmigiisa uga qaato oon u ag fadhiisto ayaan ilaahay weydiisanayay waxyaabaha cajabta badan marka waxaa qoslay ibraahim ibnu adham baa qoslay wuxuu ku yidhi yaa akhi wallaahi innaka afdalu adiga ayaa ka fadli badan cinda allaahi min ibraahim ibnu adham wallaahi adaa ka fadli badan ibraahim ibnu adham wuxuu ku yidhi ninkiina ittaqi allah yaa rajul ninkan lama garanayo wuxuu moodayaa nin meelaha ka soo wada wuxuu yidhi niyow ilaahay ka baq niyow wa ayna ana min ibraahim ibnu adham xaggeen anugu ibraahim ibnu adham ka gaadhi kara dalika alrajulu alcaalimu alwaric ninka caalimka ah ee xalaal meerashada quudashada badan
ummad oo dhaniba ay taqaano cilmigiisa xaggan ka gaadha wuxuu yidhi wallaahi ya akhii إن الله قد جاء لك بإبراهيم ابن أدهم مجرورا من ثيابه حتى ألقاه عند قدميك بروفيرس والله يا أخي إلهي ما أنت وحكوك كاني إبراهيم ابن أدهم كاد كدو عيسينيسي أو لجيديو مرديس لغسو جيدي أيا قمدها لغسو طوري أو إلهي هل كانوا كوسوك أنا إبراهيم ابن أدهم أيان أيبور الله أكبر فتعجب الرجل نينكي وليابي وحمد الله وشكر إلهي بكو حمدي سيد الدعاء الله سبحانه وتعالى وأجيبي الله يو دعاءنا يبريد أم كجرنو الله ونقا أقبل دعاءنا أنه أجيب الله صالحين تا يزمرة الصالحين والشهداء والمتقين الله ونقدر إلهي سبحانه وتعالى ضدك أنبياء إلهي إيه أنت الله كبغضنا الله إن الله حشريه وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته